munaasabadan oo lagu sagootinayay 70 arday oo deeq waxbarasho ka heshay dalka Turkiga oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kamid ah dawladda xubno ka socday dawlad goboleedka Galmudug maamulka shirkadda duulimaadka ee Airlink waalidiin iyo marti sharaf lagu casuumay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Senator Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare oo munaasabada ka hadlay ayaa ka sheekeeyay faa'iidada uu leeyahay cilmiga isaga oo kula dardaarmay ardada inay si fiican wax u bartaan. horta waxbarashadu waa qofka dhisidiisii weey, qof aan waxba aqoon waa naaqus. كتابنا كتاب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وحكى لها هذا وحوي أقوم على هذا دين كريه لما هذا أقوم تيكمته هذا ضد كورونا قبل نخترك لها الجميع ربنا ودويه ممدان حبت كنين يسين كريم بالوسيمان. Abdullahi Daahir Maxamed oo ah maamulaha shirkadda Airlink ayaa ka codsaday ardada inay raacaan habka ugu wanaagsan ee loo safro fuliyaan shuruudaha duulimaadka caalamiga. midda koowaad oo ah safarku wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood, qayb diyaarada oo Turkish Airlines la raacayo iyo qayb basa oo midkiiba aan u maleynayo inuu 8 saacadood amal qaadanayo. labada safar uu ka koobnaan doonaa. intaas waxaa hogaamin doona tiimka Maxamed Cali oo jaamacadda ka socda. waxaana xaqiijinaynaa qof kasta oo ardada ka tirsan mas'uuliyadda naga saaran oo aan gudanayno ay tahay in qof walba ilaa uu fariisto klaaskii oo dhiga lahaay uu fariisto inaan mas'uuliyadda qaadno. adinkana isku daydiin inaan raacdiin processka iyo shuruucda idin dejiyo. wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug mudane Maxamed Xaashi Dhoore oo ka hadlay gabagabadii munaasabada ayaa sheegay ardadan in ay si kaliya wasaaraddu waxay idin fududeysay sidii imtixaanka aad u gali lahaydeen. imtixaankana waxaa idinka qaaday qolooyinkii Turkida ahay oo annaga wada shaqaynta nala lahay. sidaas ayaad si cadaalad ah ugu soo baxdeen oo wax laalaab aysan ku jirin, waana sida kaliya oo ay ku hormari karto Galmudug. qaar kamid ah ardada deeqda waxbarasho helay oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin dadaalka uu galiyay maamulka Galmudug. waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad waalidiinta oo waqti badan soo gashay hadday noqoto sidaan gaarka maanta ku soo gaari lahayn oo ah way ka warhaysaan xaaladihii badan oo soo marnay dhanka imtixaanka soo galay qarashaadkii dad badan oo ugu hay'adda qaano sida idin muuqato waxaan kamid ahay ardayda loo helay deeq waxbarasho ee dalka Turkiga. marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo soo horgeliyay inaan halkaan u galno inagoo caafimaad qabna. intaas kadib waxaan rabaa inaan si qaas ah ugu mahadceliyo wasaaradda waxbarashada Galmudug. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Airlink Travel Agency oo inoo soo horgeliyay deeqdan waxbarasho oo la siiyay arday gaaraysa 70 arday ayaa waxaa si xoogan uga soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Galmudug iyadoo inta ay socotay munaasabada ardada loo soo bandhigay sawirro iyo muuqaallo lagu barayo goobaha ay degi doonaan. Liibaan Cabdi Cabdi, warbaahinta qaranka, Muqdisho.